فإن فجر الماء موسى لكم عيون من الصخر ضرب العصا اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام في كف أحمد قد فجرت عيون من الماء يوم الظما اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام حبيبي محمد عليه السلام حبيبي محمد عليه السلام صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله يا أبا القاسم أنوارك الغضبى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعدا تبت حيا وميتا يا حبيبي يا رسول الله إخوتي في الإسلام وصقا قابنا يا اسم قاد غادا كران مواضيع الله إن لقوا الرمو إيا وحباشي يالا لكن waxaan rabay adilo badan oo ku saabsan dhaqanka inaan wax ka taabto tilmaantay dhaqankiiaan ku jiraa ibnu baduuda waxyaali oo qora waxaa ka mid a libiska soomaalida la yaabo marka hadan wuxuu yiri hooskunti cad ee darfa gaduudan leh ee dhaxda gaasho qurux badan ku leh iyo wuxuu yiri mara cad laba go-oo cad shanley cad ay kor ka guntanay ka hoganayeen shanley cad oo si gooniya loo sameeyay oo wuxuu yiri aniga xataa la ii libisay oo aan weligay saa ugu farxa waxaan ugu farxa anaan arkin aalay guntiyo yiri markaasaa korna go-aas layga siiyey waxaan uu dharkan quruxda ka badatay labadan go-oo cadcad oo Soomaalida dhaqankiina aad ku libasatiin naagahana sidoo kale gabdhaha muuminaadka ah ee Soomaaliga wuxuu yiri maradaas cad ee iyaduna sidoo kale u qurux badan oo raanta leh ayay guntanaysay oo aad u dheeray guntanayso marka wuxuu yiri xageed ka keenteen aan dhahayo yiri maxaad uga daysateen adduunka wax idin kamida ma jiraan waxay dhaheen mashaayiikhdayna culamadayna waxayna dhaheen yiraahdeen ilaahay wuxuu u jecel yahay dhar ninka xaajigaahu beydka ilaahay hadduu dawaafayo wuxuu ku dawaafayo ayaa ilaahay dhar u jecel yahay yiraahdeen xaaji kasta wuxuu xajka ku dawaafaa laba go-oo labada go-oo cad ku dawaafaa go-a cad marka hadduu dhinto qofka muuminka waa lagu karfaniha adoo cidla maraysa haddaad dhimato waa lagu gelina karfantaadi aad wadataa diyaar garowgaagi aad wadataa dharkii quruxdiisina waa wadataa haddaan aniga maradan aan soo qaadanayo oo saan u qaadayo waxaan rabaa in dhaqankayni iyo hiddahayni sidaan u ahay aan ku tuso koofiga barawaaniyaa la yidhaahdaa gacantaynaan ku samaysanaa marooyinka badankooda idindi iyago oo qurux badan aan samaysanaa hooskuntiga isagoo qurux badan waa dhar labaa oo haddaad ku xajisa aan la bedelanaynin xujayda Soomaalida ayaa laga helaa dharkay gurigooda ka yimideen dharow xajka u kaafinayo asagoo socdo u qaadana labadiisa go-o sanduuqoo fakala soo leeyahay kuwana waa ku fuulo diyaaradda kuwana waa ku xajinaya asagaa leh ugu yaallaan ewo labadan go-ood caadanayno oo hadda markay dabaaldegayaan oy shirarka qabaan iyo dhararka qabaan ay qaadanayaanna waa dhaqankayni koofida saana oo madaxa lala sinaayo oo nuucaas loo sameeyana waa koofiga dhaqankayna anigu samaysana waa barawaaniga waa hadda halkan kale oo dhabjaca ood soo qaadanayso iyo cimaamada madaxa korkiisa ka jallaalayso yaad uga daysee dhaqan kaloo muslima waa sacuudi waaye mahano sacuudi waaye maaragta sacuudiga say dhaqankooda ugu adag yihiin inay qamiiska ka tegay oo inay cigaalka ka tegay madaxweynow naqaha boqora cigaalkii wataa iyo qamiiskii maarkino suudkan qaadama dhaqankiisa ku dhagan yahay adigu dhaqankaaga xaa ugu tegaya marka waaba dhaqankii lagu xajinaaye halkan qamiiska waa siiba hadduu xaji tageen ama ogta
qamiiska inta la xajaa ma la wada karaa dhar la tolo lama ogola xajka go-aanaan ku xaji karaa hadda kan anoo wato hal sidiisa haddaan guntado layga joojima xajka ansax waa xajkayga go-yaalka soomaaliga marka saasay ka yimideen waxa uu soo qaata marka inay diinka say ugu dhisan soomaaliya marka maxay ahaday shuura ma taqaaniin shuura waxaa waaye quraansho waaweyn oo isdaba joogta oo tub farata oo hal u horeeyo hal u dambeeyo oo boqolaal xabaa oo hal tub ku qulqulayaan dadkayna waxay yidhahaan shuuraan sharogeline shuurihii aan sharogelin allah naga dhigo waxay ahaayeen 100% muslim waxay ahaayeen 100% ahlu sunna waxay ahaayeen 100% shaafici waxay ahaayeen 100% ahlu dariiqa hal tub malemahan markaas goorma fitna bilaabata marka 1960 kiya madaahib masaariya ahaa jirta macallimiin dadka wax bari jirtay macallimiinta shaaficiga ahana loo soo bedeli jiray khudbooyinka shaaficiga lagu akhri jiray imaamka shaaficiga ku ahaa jireen iskoolkana shaaficiga ku dhigi jireen waa fidi jireen madaahib kale waxaa la bilaabay 60kii cidaan kala bilowda masiibadii ka soo baxdana waa kan hadda manhajkii lagu gees lagala maray oo la budaajayo marka qaswul fikriya la yiraahdaa weerar oo maskaxda la iska weeraro iyo weerar dagaal ciidan la isku weeraro weerarada u qaybsamaan weerarka maskaxda la iska weeraro halka ciidanka waa ka xun yahay mishiinka ummadu taqiinay oo wada saaray oo ku wada raali ahaayeen oo yaala oo mustaqiima oo aad arkayso oo ibn Battuta ka marbaxshay oo niman wanaag ku dhamaysan jirin oo caalamul islaam ictiraafsan yahay ilmigana ku horeeyaan aadaadkana ku horeeyaan taqaaliidda maxmuudada ku horeeyaan sifo kastana ku horeeyaan ayaa inta loo yimidaa shakab madhabka la soo siiyay nin sheekho caalama ayaa wuxuu u yimid in xiraysay wuxuu waxaan rabaa sheekho waa soo xiraystay inaan wax ka barto wuxuu wadankeed ka timid wadankaasaan ka imdow wuxuu wadankaad ka timid shaafici waaye anigana xaniifaan xanafiyaan ahay haddaad aniga wax iga barato wadankii haddaad ku naqato qasaad geynaysaa madhab kalaad ku qasaad geynaysaa sheekha meel habla joogaa shaafici madhabkiisa yaqaan caalim ah u tagow oo nin waraca oo xalaal miirati oo taqiya oo faqiiha ninkaas aad ugu saasa marka taqwada ilaahay ahaa jirtay wadankaas waxaa loo diri jiray dad madhabkiisii oo yaqaana in iyo dadka la soo qaado madhabkiisii madhabaan ahayn la baro wadanka lagu soo celsho waa qaswul fikri waa duulaan weerara oo cadowtimo khatar ah way weliba dhibka hadda Soomaaliya haysta oo jajabka keenay oo burka keenay oo masiibadu ka timidna qaswigaan oo ku yimid maxay isticmaaleen marka si ay u fuliyaan fikirkooda oo dadkii mashiinkii saaraadir uga dejiyaan maxaa la isticmaalay التشكيك في المصادر الإسلامية أقوانتي إسلام كاللبادة مصدرية وقرآن كي سنة شكيا لغا قلنا كتشكيك في القرآن قرآن كي على شكي قلي سيلو شكي قليها من حافظة أو معلمة أو انت سوء دكسيكا قعشي أو بقولية ما يفر عاور رئو كتوسينا هل مقفين ولو يمن وعلى خيسة باطل وآمس سليم آمس تجي لعنة الوضع شب لي تجويد ما هو وهذا هذا تجويد ما عم سالي سيف نوال لو قدره هو حبسه ولادك معلنك قيوده ويلحقه اسكف فديست انو دله قران كان ان بدمين انو كتاب له قران كدمينا لغيه الشيخ اللي يراه الشيخ يوسف الكونين وهو بالله ألف وحمل ألف لكل ألف لوس ألف لابد الماء صار معارض إن القرآن كحفظيان ودون كوهر مران ساسا كلفته هذا أنا الله بالله إن اللي ما جرت كرد بين كرد وكم جرته ألف باء باف بجو جم نقول طبعا سنو ماشي كوفة دينا حبضنا القرآن كبر مايا القرآن كساسو كلهم التشكيك في القرآن قرآن كي الله قصي oo la shaki geliyay
سنة النبي قال لا شك قليه حديث كان موضوع واي لم يصح ما أصحن لم يصححه الألباني ما صحن انت كما جرو جو شبه الوليه موضوع وحاس ما أسونانين وريا كوشا وصائب طريقة الله استعمالي ونقول سميان كنت المعمر اتهام الصحابة الصحابة وين لا تهمستي كاتهام أبي بكر أبو بكر الصديق محاليري أسلم شيخا لا يدري كوعه من بوعه أصبح شيخا أو اسكو درمي أو وايلوبي أو حيرين ماندوب أو إسلامي إسلام كيس أنصح ما هيدا أبو بكر الصديق وايد أفضل الصحابة بعد رسول الله والصديقين من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين مع كل والصديقين ومن هم الصديقون كأبو بكر الصديق ومريم بنت عمران وأمه الصديقة نبي يا جبل فولي نبي جبل فولي وعلى جرى أبو بكر عمر عثمان فارتجف بهم جبل كيالا قريرة والرحمة جبل كوار رحمة لماذا؟ محبة لرسول الله جبل كنا بقول جعلها اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحب سيدنا بدر الهدى مطيام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور البدر الهدى مطيام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحين إلى محمد ما زال من وجودي مطيام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لي حبيبي سوى محمد غير الرسول نبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيأ